cabdilla cabdullaahi oo uu lalamayo kursiga barsamaha ama gaafanaha maamul goboleedka dowladeed Wajeer wiilkiiniyaan ahay tolkeygiyaa tihiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin weliba khaasatan cidda ree abtigay mataan khaasatan cidda ree abtigay maxamuud sharafta aad maanta i muujiseen hiilada aad ii soo hiiliseen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin qof la jecel yahay ayaa intaan oo kale ay isugu timaadaa dad khayr ka talinayo ayaa intan iyo in ka badan isugu timaadaa maalintaan siyaasad soo galay bisha 9aad ilaa hadda ree Wajeer meel alla meeshaan tagaba weliba khaasatan dhalinyarada Wajeer iyo dumarka Wajeer sidan ayay ila jiraan qabiil walba kuanzia Wajir South mandugu zangu Wajir South illa raga walaalehen Wajeer North inta qabiil oo degan Wajeer West waxaana ay halka ninka ah ama raga wada taagan ninka ugu taageer badan dhalinyarada ree Wajeer qabiil alla qabiilka yihiin waxa la ii soo diraa oo mararka qaar aan aniga xataa la yaabaa oon isdiraha siyaado waxaan xataa wax jira miya oon indhahayga xataa ay fashaxmaan markii lii soo diro WhatsApp group oo qabiilo bahgari gari koombe maqaabul maxamed subeer dogoodiye jilib walba ajuuraan jilib walba oo siyaad group governor siyaad ay ku qoranta taas waxay tusaysaa dadkii hore siyaasadda ku jiray baa dadka kala geeya mooyaane dadka ree Wajeer dad macaan ay yihiin inta degmo oo North Eastern laga dago ama waqooyi bari laga dago meel Wajeer lamida ma jirto dadka siday isu jecel yihiin qabiil walba Soomaaliyeed ayaa Wajeer degan tafarraqana uu ku yar yahay magaaladan taariikhiyan qabiil walba harti dhulbahanti ma jeerteen ayaa ganacsiga Wajeer ugu badna oo dukaamo ku laha عرب با دكامة كله مريحان با بزنس كله ما جرتين با دقن او قال شعل سنتور با دقن او عد والبا يا دقن كلنا ويكسو وذا دويهن وجر إن الدقان حق بيوليه وانا سودا وينينا وحاربنا إن الدولة يوم مسكح يوم فكر عصب او وحان قولنا وحبن نو ترينين ان كبحنو او دول كينا ان دسنو سماها وحيار رورتا وحان اهدا وقم هذينا يا walaalkay Mheshimiwa Axmed Qolosh xildhibaanka laga soo doortay Wajeer West maanta inuu nagala soo qayb galo xafladan Mheshimiwa Qolosh aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wuuna ka hadlay hiiladii uu noo soo hiiliyay in qofka governor hadduu taagan yahay wuxuu u baahan yahay taageer xildhibaano asaga kaligiis ma inay kuwa badan oo kala taageeraya aaduna ugu mahadsan yahay waa qof anaga garab noo noqday asagana garab baanu noqonaynaa Soomaha midda kale ragga MBS u taagan oo cid raabtigay waxaan ka rabnaa sidii oo kale arinta governor inay anaga beesha midimaal loo hambeeyaan maadaama siduu Axmed sheegay aan TMB nimada u imaanin in ragga wada taagan kulli walaalkay jiir khaliif waxaan ugu mahadinayaa inuu salaan soo diray oo yiri waa in la taaganahay waana idin dhisi waana idin taageeri taasa waxaan rabaa sidii walaalkay aan soo dhaweyn doono idin bari doono si rasmi aan in bari doono deputy governor Axmed Xefow waxyaalaha qaar uu ka dhawaajiyay waxaan ku laaban rabaa waxaan rabaa si rasmi oo toos inaan in baro oo soo dhaweeyo laakiin intaan gaarin waxaan rabaa inaan in sheego hadday Wajeer toosan tahay oo hoggaankeeda toosan yahay oo Wajeer ay dhisantay ragga aniga oo kale iyo Axmed Xefow kursi ma soo doonanin dadka hoggaanka wadan la wadi lahayn waxaan nagu soo kalifay inaan kursi soo doono Wajeer ma toosno hadduu idinku jiro hal qof oo maanta aaminsan Wajeer inay dawladdeeda toosan tahay wuxuu yiri Mheshimiwa Kalonzo Musyoka maanta soo qaadanaya wiper oo press conference wila bixiyay wuxuu yiri Wajeer ilaa 3 sano ما أنا أجين قف جافنا كها محكمة بيش النبى جافنا بيش الدم النبى جافنا
mid dambe mid baa deputy mid kale mid baa waxay noqotay county wareersan annaga waxaan go'aansanay county-gii dadka deganaan soo hiilino maxaan ugu hiilinaa in aan hoggaan rasmi ah oo degan oo maskax leh oo normal dad county loo maamula aan u keeno oo wixii aan soo baranay iyo hoggaan isi meel loo maamulo inaan ku siyaarino ku caawino waxaa la yiri meeshaad ka dhalatay ninka ragga ah markii ay dadka reemiga roobdoon ay abaarta dhacdo soo lama sahmiyo soo sax lama aado ninka ragga adduunweynaha dhan ayuu cilmi iyo shaqo u doontaa laakiin ugu dambeyntii meeshuu ka dhashay asalkiisa ku soo laabtaa annaga asalkeenni ma ku soo laabanay inaan wajeer dhisno wajeer aan sidan u dhaana rabnaa waxaan aragnay dadka xisaabta qof walba wuu garanayaa numberka 10 times 10 equals 100 wajeer 10 sano ayaa 10 bilyan la siinay bal ilaahay ku dhaarsheeray wajeer iswarayste 100 bilyan oo shilin wajeer ba ka muuqataa horta waxaan kursi soo doonaa waxaas 100 bilyan ayaa maqan wajeerna sana u baaba'santa musqul male sewage system male biyo male nal male maxay marka county headquarter u noqotay wajeer town iidoon shaqo lahayn beera lahayn ay sewage lahayn isbitaalkeedii toosh lagu isticmaalay in bukaan socodka lagu arko meeshan waxay u baahan tahay isbedel soma waxaa kaloon aniga la yaabay maadaama aan ku maqlaa adduunweynaha kale oo dadka adduunweynaha kale iyo dowladaha dhisan aan wax ka soo barto la deganaa waxaan la yaabay oona mashimiyo qolosh u shaahid iga noqonaya oona wax la sii wadi kara aan ahayn xildhibaan la shaxaado iyo siyaasi la shaxaado nolol ma noqon karto ma isaf garan dadkaan la ceyrsanaya ayagan waxay u carareen bini aadan gacan lama gaaraan meesha waa inay dhisanto meesha waa inay shaqooyin lahaato waa inay beero lahaato hadda countiyadii xataa waqooyi bariye kale way dhismeen mandheera qofkii tago way dhisantay 5 sano ugu dambeysay second termka roba way dhisantay gaariso way dhisantay halka meel ugu liidata meel walba 47 counties oo wajeer ilaa xataa intay dadkii ficilkoodii batay ilaa ay siyaasiintii leeyihiin shir hebel uu qaban qaabiye ma tagayo war dhalinyaro high school dhiganaya miya foodley miya xinka maxay tahay maxay tahay MBL aan governor la shaqaynin waxaan macquul maaha aniga waxaan rabaa inaad ii hiilisaan kurihiina isiisaan aad Soomaali weyn ii geysaan kure ila raadisaan maanta wixii ka dambeeyo abkay dagoodiya kulli ila dhaxqaadaan abkay ajuuraan iyo walaalaheen ogaadeenna aan kure ka keenno on dawlad cusub oo dadka sidan u dhaanto aan keenno abaartii aan ka soo baxnay abaartii hadda aan ka soo baxnay bal ilaahay ku dhaarshay haday abaar kale lagu timaado ma biyo dhaamin man ku jiri doonaa waxaan wax lagu noolaan kara miya in dad shakhsiyan aniga ayaa ugu inta qof oo u lalamaysa kursigan inta meelon biyo geeyay abaartan dadka dhan ba shaahidka soo maaha laakiin waxa fiicnaan lahayd haday dawlad qaban lahayd meel 10 bilyan la siiyay muxuu qof shakhsiyan jeebkiisa biyo uga iibiyaa 10 bilyan baa lagu siiyay ma dadka u shaqaysid marka reewajeerow waxaan rabaa dadkan in imaan doono qolo in sheegi doono qolo ilma anfacayso qolo dawlad lagu ma dhiso ma fahamteen 2,000 shilin liisiyana waxaad ogaataan 100 bilyan bay dhaafini marka dadku waxaad ku tirahaan maya kureheena ninkan dhalinyarada oo wax soo bartay oo hoggaan private sector ka soo sameeyay oo lacag dawladeed ay soo dulmin oo wax bob soo galin ayaan dooranaynaa dhaha ma maqasheen